الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة waxaynu kaga hadlaynaa qiimeynta saxa ah ee loo baahan yahay inay bini'aadmigu ay isku qiimeeyaan. adduunyadan maanta aynu joogno dadka badankoodu markii qof ay qiimeynayaan waxay weydiiyaan maalkiisa iyo xoolihiisa, lacagta bankiga u taalla, gaarigu wataa noocu yahay, guriga uu ku jiraa inta uu leegyahay, qabiilka uu ka dhashay, malaandheera mise waa laangaab, ashyaa maa anzala allahu biha min sultaan. arrimo marka la eego qiimeynta saxa ah iyo halbeega ilaahiga ah ee ilaahay jalla wacala uu dadka ku qiimeeyo, qiimeyn aan ka duwan taasi ayay dadka bini'aadmigu maanta isku qiimeeyaan. laakiin waxaa loo baahan yahay in dadka muslimiintii iyo bulshada iyo mujtamaca muslimkii si ay cagta u saaraan tubta saxa ah ay ku hagaagayaan, ay kaga nabadgelayaan wax walba oo khilaafsan sharciga iyo diinta alle subxaanahu wa tacaala. waxaa waajiba marka ay bulshadu isqiimeynayso, ee afraaddooda ay qiimeynayso, ee ay dadkeega qiimeynayso, inay ku qiimeeyaan halbeega iyo qiimeynta saxa ah ee ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala qiimo ku leh, waxtarna ku leh. imaam muslim raximah اllahu tacaala wuxuu soo wariyey oo nebiga salى اllahu alayhi wasalam uu ka soo wariyey, wuxuu nebigu salى اllahu alayh wasalam uu yihi: in allaha laa yanduru ilى ajsaamikum walaa ilى suwarikum walaakin yanduru ilى quluubikum wa acmaalikum. xadiiskaasi ayaa qaacide ah, wuxuuna waafaqsan yahay qowlka ilaahay jala wacalaa ee ah: yaa ayuha الnaas inaa khalaqnaakum min dakari wa unhaa wajacalnaakum shucuuba waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum. fadiilat sheekh ibnu cuthaymiin raximah اllahu tacaala ayaa markuu xadiiska abu hureyre sharxaayo ayaa wuxuu tilmaamay in xadiiskiiyo aayaddu ay iswaafaqsan yihiin, macnaha ay ka hadlayaana uu isku mid yahay. haddaynu ku horeyno qowlka ilaahay jala wacalaa, ilaahay wuxuuna leeyahay yaa ayuha nnaas, dad yahow. marka hadalkaasi wuxuu muwajah ku yahay oo uu ku jeedaa oo loogu baaqaya waa bashariyada dhammaanteed. yaa ayuha nnaas, dad yahow, oo gaal iyo muslim lama kala soocin, abyaduhum wa aswadahum, kooga cad iyo kooga madow, kooga bukaanka iyo kooga caafimaadka qaba, kooga maxaanku dhahdaayey lacagta leh ee hodanka ah iyo ka faqiirka ah, kooga madaxda ah iyo ka madaxda loo yahay. bini aadmi oo dhan buu ilaahay la hadlaya subxana wa tacaala oo ku leeyahay yaa ayuha nnaas, dad yahow, inaa khalaqnaakum min dakarin wa unhaa, waxaan idinka abuurnay lab iyo dhadig. waana abuurka qofka bini aadmiga ee saxa ah ee fidrada waafaqsan, ee dadka munxarifiinta ah ee maanta abuurkii bini aadmigii fidradii bini aadmiga doonaya inay bedelaan, kuwaas waxa weyn waa munxarifiin ka leexday in fidradii iyo abuurkii bini aadmiga sax ahaa. laakiin abuurkii ilaahay bini aadmiga ku abuuray ee asaaska waa maxay? waa lab iyo dhadig. ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala: dad yahow, lab iyo dhadig baanu idinka abuurnay. wajacalnaakum shucuuba waqabaa'ila, waxaanu idinka yeelnay shucuub iyo qabaa'il. oo bini aadamku waa kuwa shucuubtaasi iyo umankaa kala duwan iyo qabaaishaa kala duwan weeyaan. ilaahay jala wacala wuxuu inoo sheegaya cilada, ayuu inoo sheegaya sababta uu ilaahay subxana wa tacala sidaa dadka bini aadamka ugu abuuray. wuxuu alla jala wacala u yihi litacaarafuu, inay isgarataan. oo ninkaasi waa ree hebel, gabadhaasi waa ree hebel, ninkani qoomiyadaasu ka soo jeeda, kaasi ummadaasu ka soo jeeda, saa loola jeedo. wax kale may jirtaa fii miisaan illahi subxana wa tacaala ma jiro. haddana ilaahay subxana wa tacala wuxuu inoo sheegayaa arrin kaloo weyn oo ah: ina akramakum cinda allaahi atqaakum. kiina ugu karaamo badan, kiina ugu sharafta badan ilaahay agtiisu waa kuma?
maka ree hebelba maka shacbigaasi ka soo jeeda maka qabiilkaasi ka dhashayba maka ina ugu xoolaha badanba ilaahay wuxuu inoo dejinayaa oo inoo sheegaya qaacidada iyo miisaanka inoo sheegaya oo ilaah jalla waxa yidhi ina akramakum cinda allaahi atqaakum kiina idinku karaamada badan ee ugu sharafta badan ilaahay agtiisu waa kuma waa kiina ugu cabsi badan taqwada ugu badan haysta waayo ee ugu toosan dariiqa ilaahay xadiiskuna wuxuu inoo sheegay ayuha alikhwa xadiisku wuxuu inoo sheegay uu nebigu sala allahu alay slam yidhi in allaha laa yanduru ilaa ajsaamikum walaa ilaa suwarikum ilaahay ma eegaayo jirhkiinu intuu leegyahay iyo suuradda iyo si aad ogtihiin intay tahay siday tahay walaakin yanduru ilaa quluubikum waacmaalikum ilahay wuxuu eegayaa quluubtiina iyo acmaashiina fadiilat sheekh maxamed saalix bn cuthaymiin raximah allahu tacaala ayaa isagoo xadiiskan sharxaya ayaa waxa uu yidhi in allaha laa yanduru ilaa ajsaamikum walaa ilaa suwarikum ilaahay ma eegaayo kiina jimir weyn iyo kiina jimir yar kiina dhuuban iyo kiina ballaadhan walaa ilaa suwarikum suuraddiinna iyo sidaad u egtihiinna ilaahay ma eegaayo kan baa qurux badan kan baa aan qurux lahayn kan baa madow kan baa cad kan baa wejigiisu suurad fiican yahay kan baa wejigiisu aanu suurad fiican ilaahay subxana wa tacaala waxyaabahaasi isagaa sidaan idin abuuray ilaahay isagaa quruxda inii qaybiyey ilaahay isagaa jimirka iyo jidhku intuu leegayey isagaa inii qaybiyey ilaahay isagaa midabka inii qaybiyey laakiin laa yanduru ilaa dalik ilaahay waxaasoo dhan ma eegaayo ilaahay agtiisana qiime kuma lahaa maxaa ilahay agtiisa qiime kula ayuha alakhwat alukht meesha loo baahanyay inaad iska daweyso oo iska hagaajiso oo iska qurxisaa waxalkee walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilahi subxana wa tacala wuxuu eegayaa quluubtiina qalbiga maxaa ku jira ma taqwada ilahay baa ku jirtaa ma ilaahay cabsiisaa ku jirtaa ma jacaylka ilaahay baa ku jira ma doonista ilaahay baa ku jira qalbiga maxaa ku jira ma salaax iyo wanaag baa ku jira mise fasaad iyo fuxshi ayaa ku jira walaakin yanduru ilaa quluubikum quluubtiinuu eegaya ilaahay jala wacalaa wa ilaa acmaalikum iyo camaladiina ila inu qofku yidhaahdo iimaanku waa qalbiguun maaha dadka qaar baa koranaya iimaanku waa qalbiga dee qalbigii waa sax weeyaan oo niyadii wanaagsaneed iyo ujeeddadii iyo qasdigii fiicnaa qalbigu ka dhalanaya walaakin waxa weeyaan ujeeddada iyo niyada wanaagsan ee qalbiga ka dhalatay laabudda an tancakis cala alacmaal waa in camalkiina laga arko oo camalkiina uu noqdo camal fiican cumar khataab radi qiso aad iyo aad arrinkan inoogu waadixinaysa ayaan inoogu soo gebagabeynaya qisadaas waxay tahay cumar khataab radi allahu tacaala canhu alfaaruq waad wada garanaysaan ayaa markuu labadii boqorteeyey romankii iyo bershiyankii markuu madaxa ka garaacay ee xilligu isagu uu khaliifada ahaa amiirulmuminiinta ahaa ee arladii muslimiinta lasoo hoosgeliyey waa ruum iyo furus waa labadii imberatoriyood iyo boqortooye adduunka ugu weynaa ee cadligii islaamkana lagu dhaqay ayaa cumar radi allahu tacala canhu maalmaha ka mid a ayaa wuxuu iskugu yeedhay muslimiintii ahlura'y wa ahlulmashhuura waa baarlamaankii islaamka weeyaan majlis alxalli walcaqd ayuu isagoo fadhiya madiine ayuu iskugu yeedhay dadkii marka waa loo soo gelayaa cumarna wuxuu doonayaa taladooda iyo mashhuuradooda ayuu doonaya kolkaasaa dee xaaris baa albaabka taagan ilaaliye ayaa dadka soo ciddu yaraa cumar noqdana wuu celinayaa ciddu yaraa soo galna wuu ogolaanayaa markaasaa waxaa albaabkiisa soo taagay niman waaweyn oo quraysh madaxdooy ah waxay soo taagay abu sufyaan radi allahu tacala canhu ood garanaysaan dee ninkuu ahaa laakiin qabla alislaam dee ololihii dagaal oo islaamka kusoo qaaday waad xusanaysaa laakiin allah subxana wa tacaala ancama calayhi bilislaam fima bacd radi allahu tacala canhu abu sufyaan iyo alxaaris ibnu hishaam isna mar dambuu soo islaamay waa min saadaati maka wa min saadaati quraysh abujahl walaalkii weeyaan iyo camr ibnu suhayl waa khatiibuhum waa ninkii khatiibkooga ahaa ee u hadli jiray afhayeenkoogii buu ahaa iyo xakiim ibnu xizaam oo isna nin maalqabeen ahaa nimankaa waaweynaa ee min cudamaai quraysh ahaa ayaa albaabkiisa soo taagay daarunadwihii cumar daartii baarlamaanka dabeetana cumar baa looga idan qaatay cumar wuxuu yihi celiya oo uma ogolaan inay soo galaan iga celiya buuri ha joogaan halkaasi haddana waxaa yimid bilaal ibn rabax iyo camaar bin yaasir iyo salmaan alfarisi iyo suhayb arumi
ومن ضعفاء المسلمين بكمل هاين مركا عمر وحي سو دايب ولا سو غلان والله غلاضي بلال دوا مؤذن كي النبي صلى الله عليه وسلم maalintii ma ka la furtay buu nebigu intuu kacbada yiri dul fuul ayuu ka adimay shanta salaadood bilaal baa nebigu u adimi jiray muadinkiisa hadda laakiin qabla dalika kana abdan habashiyan adobuha way Ammar bin Yasir min ضعفاء المسلمين Suhayb الرومي Salman الفارسي قبل الإسلام maxay ahaayeen waxba ma ahayn uu soo wada day oo bilaal baa ugu horeeyay halkaas ay Umar hareeraha ka fariisteen markuu Umar uu ogolaaday in saxaabadaasi ka mid ah ضعفadii muslimiinta bilaal iyo Ammar bin Yasir iyo Suhayb الرومي iyo Salman الفارسي أبو سفيان رضي الله عنه يا هشام بن حارس يا عمرو بن سهيل يا حكيم بن حزام قولدان الباب كلوتشوتشي يا أبو سفيان رضي الله تعالى عنه أي أرنكاسي وير قادم واي وهو كل عصلاتي إنه أرنكاسي وقاتل رضي الله تعالى عنه كل كاسي أيا وحا ويري وحا مانت أن أركي يضو حجبت على باب عمر أو وقفت على باب عمر إذا الباب كي عمر لي جوتشي ولإيدي دي إن صوغلو والله لقد رأيت الخطاب في الجاهلية يحطب على حمار وحنا الجاهلية دي أسو تاجنا إذا خطاب وعمر الخطاب أبيه جاهلية دي بكال الله يعني قيم كي جاهلية دي برقاسي إذا وخطاب والضمير كحها بيصنعيو يعني طبعا قيم كيميك ويسبدلي أو إسلامي أو إيمان يديما ماشي تمد marka wuxuu u qaadan waayay baan imankan ducafada muslimiinta Umar ugu ogolaaday inay u soo galaan baarlamaankii iyo daartii iyo nadwadii muslimiinta anagoo shuyuukhdii Quraysh ahna albaabkana lagu joojiyaa hada Amr ibn Suhayl wuxuu ahaa nin aqli badan buu ahaa wax garad ah ayaa wuxuu ku yiri ya Aba Sufyan wallahi ma alayya an uhjaba ala bab Umar أو نحجب على باب عمر إن الباب كعمر ما أنت اللي نوديدو إن أنو قالله أما الباب اللي نقول أرين وين أنا إلى معها لكن وحى إلى وين وتاي إلى وين إنه ما أنت قيامها نماضنه وإن من كاسي إنه الريان إنه جن اللي نقول تان كعب سنة وتاويان تاسا إلى وين بوتشو يا أبا سفيان دعوا ودعينا إسلامنimada waa loogu yeeray inagana waa leenoogu yeeray oo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam deereema keenoo wada ahayn iyagu ducafadii ahaadaan inaguna ragii magaranaysa waaweynaaye Quraysh rageegii odayaasheedii waaweynaan ahaano laakiin islaamnimada mar baa leenoo soo wada bandhigay laakiin iyagu faajabu islaamnimadii way ajiibeen وتركنا إننا وين كتجني يوم إسلامي بي قرتين إننا إسلامي بي نقرن ويني مركها يعني ميزان كإسلام كوحويا وعمر وحكم ميزان ما يي صحابة عاسي يرقوا رشد ضعفاء ويستانه وأهل بدر وأهل أحد ورجي وحول بقى هيان إسلام كإسلام بربر تهاجويا وضدك النبي صلى الله عليه وسلم النسريي قيمينتا iyo halbeega dhabta islaamnimaduna waa in qofka lagu qiimeeyo diintiisa iyo amalkiisa saalixa iyo iimaankiisa oo ma in lagu qiimeeyo cimaamad qurux badan oo rishwaaniya garabka u saaran ama koofiyad qurux badan buu xiran yahay ama maalinka maanta yaani in qabiilka iyo reerka iyo shacbiga iyo ummadda ayuu qiimeyn maadiye u ku leeyahay maaha uu ku dhex leeyahay waxaan maxaad islaamka u tartay safka hore salaada ma ku tukataa xoolahaaga islaamka ma ku baxsataa dacwada ilaahay ma ka shaqaysaa danta islaamka ma danaysaa ma tahay nin dhalinyara oo xirfadda uu ilaahay u siiyey anaqdo nimanka dhalinyarta waa wada dhalinyar nimanka yani in xalaqadan tuubaya oo aqoontay lahaayeen ee iclaamka iyo miidiyada ay u lahaayeen u adeegsanay si islaamka u faafin lahaayeen oo masaajidda tagaya oo muxaadaraadka tagaya bimaana inteed islaamka aad qabatay maxaad islaamka u haysaa umartu wax ku qiimeeyay
qoladaana ku soo geliyay qoladaana albaabkiisii ku joojiyay waxa ahayd inuu ku kala qiimeeyay waxa islaamku u qabteen iyo siday nusrada islaamka ugu degdegeen innagana ayuha ikhwa akhawaat intay goor tahay inaan adduunyadan ka tegin aynu ku dadaalo waxa ilaahay nagu qiimeynayo waxa aynu sharafta iyo karaamada ku helino maalinta qiyaamaha aynu ku dadaalo wajazaakumullahu khayr wa salaamu